Soomaalidu waxa ay tiraahdaan ninkii raran ku roogsadaa rabeeye nin la ruug shaxaad u reebtay. Murtidaas waxa ay soo xasuusiyay shalay markaan wada akhriyay qodobadii ka soo baxay shirkii maalmahan Hotel Jazeera uga socday siyaasiyiinta musharaxiinta ah. Waayo qodobadoodu kuma ekeen doorashada iyo habka loo maamulayo ee cabashadu ka timid, sidii in doorasho waqtigeeda ku dhacdo iyo in doorasho xor iyo xalaal ah oo aan madmadow ku jirin ay dalka ka qabsoonto. taasoo la rumaysnaa in ay ahayd ujeedada ugu weyn ee halka doon soo wada saartay siyaasiyiintan kala damaca ah. isla markaana shirkan loo qabtay, balse hadda waxaad moodaa inay odayaasha ciyaarsiinta awooddu la taraaraxday oo ay la gashay arrimo kale oo aan iyagu quseen oo aan la garanayn qaabka looga garaabo ama loola ciyaaro. sida waa in guddiga doorashada gebigoodba la kala diraa, hebel xilka ha baneeyo, hebel doorashada reerkooda ha loo madax banaaneeyo, doorashada reer hebel ha lagu qabto meel hebel, hana waardiyeeyaan ciidamo hebel, waa in ciidamada dowladda laga soo saaraa gobol hebel, iyo haddaan warkeena la dhegeysan waxaan magacaabin doonaa guddiga badbaadada doorashada dalka oo u fasirteen inay iyagu doorashadu qabanayaan iyo qodobo kaloo u muuqda shaqooyinkii dowladda in lagu farageliyey, halka qodobada qaarkoodna aad moodo inay siyaasiyiintu madasha iskugu tegay oo mid walba ku darsaday qodob isagoo u gaara oo jeebka ku watay. tusaale, Professor Gandhi waa wax iska cad in isagu ka wakiila Axmed Madoobe oo qodobada shirka ka soo baxa ku darsaday qodob oranayo waa in gada laga soo saaraa ciidamada dowladda, sidaas si lamida ayaa marka laga reebo qodobada laga wada minisnaa loo akhrin karaa. siyaasi walba goobta joogana qodobku daneynayo ayuu warmurtiyeedka Hotel Jazeera ku lahaa. inkastoo falanqaynta iyo lafagurka qodobada ka soo baxay shirka ay dhanka baraha bulshada shalay aad uga yaraayeen, lana oran karo waxaa sheeqiyay oo ka awood badiyay hadalka uu jeediyay gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Cumar Finish oo lagu soo beegay, isagana xaqiiqdii khudbadiisa ay ku jireen hadallo deelqaaf ah oo aan waqtigan ku habboonayn iyo kuwa colaadeed oo ay ahayd in laga fogaado. haddana haddii ay dowladdu aqbasho ama ogolaato qodobada shirka, waxa ay iyaduna noqonaysaa dhaawac iyo in lagala wareegay waajibaadkeedii shaqo iyo tii ka saarneed arrimaha doorashooyinka qaranka sida ku xusun dastuurka ku-meel gaarka ah. haddii ay ka aamustana waxaa suurtagal ah in siyaasiyiinta musharaxiinta ah sida ku xusun qodobka ugu dambeeya warmurtiyeedkooda iyaguna ay magacaabaan guddiga badbaadada doorashooyinka dalka, waxayna dadka siyaasadda rogroga u arkaan qodobkan in uu yahay shax u diyaarsan musharaxiintan oo ay rabaan inay isticmaalaan waqtigii loo baahdo. markaana waxaa suurtagal ah in labada daraf marka la isla mari waayo ee beesha lixaad oo beesha caalamka ay labadoodaba kala wareegto doorashada dalka ayna noqdaan dad loo taliyo oo sida wax loogu qaybiyo aan ka hadli karin, waana laba daran mid dooro. markay taagan tahay ebelba looma sineen qaladaadkii ciladaha doorashadu oo madaxda dowladdu waxay ku ciyaaraysaa garoon qodxa fara badan ku daadisay, halka musharaxiintu ay ku ciyaarayaan garoon siman ayna diidayaan in kulamadooda abeyga ku ciyaaraan garoon qodxa badan lagu daadiyey. balse hadda waxaa muuqata in iyaga garoonkoodii qodxa badan ay ku daadiyeen, waayo way caddahay in siyaasiyiinta musharaxiinta ah aysan wax badan xeerin oo xanaagu ka tambadiyey, mana ahayn in xaaladdu sii cakiraan ee waxay ahayd haddii ay rabaan in madaxweyne Farmaajo fagaare isku helaan oo ay la tartamaan in dhankooda hoosha soo fududeeyaan iyo inay ka fikiraan sida ugu sahlan ee dalka ugu dhici karto doorasho hal gacan ku jirin oo loo wada siman yahay. sidoo kalena waxay ahayd inay xeyndaabkooda ku ciyaaraan isla markaana qodobadooda ku saleeyaan meelaha cabashadu doorashadu ka qabaan. waxyaabaha maangalkana ay reebaan in laga saxo iyo tala soo jeedin ku aadan in la helo korjoogatayaal caalami ah oo doorashada ilaaliya maadaama la isla tuhmay. laakiin hadda waxaa moodaa in xeyndaabkii dowladda ay u soo tilaabeen ay ku ciyaarayaan. haddii aad qodobada shirka ka soo baxay si fog u eegtaan oo arrintu waxay tahay dalkaysan doorasho ka dhicin, waayo qodobada qaarkood waa kuwo ka hor imaanaya xeerar uu baarlamaanka federaalka Soomaaliya horey uu u meel mariyay oo haddii la rabo in wax laga laabo aan ku xirnayn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha una baahan waqti dheer, halka qodobada qaarkoodna ay maskaxda caafimaadka qabtaa hidiideyso sida qodobka 14aad oo oranaya goluhu waxay mustaqbalka xil iska saarayaan xaqiijinta doorasho qof iyo cod ah si shacabka loogu celiyo awoodda. qodobkan su'aalaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah sidee mustaqbalka golahani u xaqiijin karaa doorasho qof iyo cod ah, yaa u doortay iyaga hawshan,
horta golahani muddo intee la eg ayuu sii shaqaynayaa? Suurtagalse ma tahay in ilaa 2025 uu golahani sii wada joogo? Aanse weydiimahaas iyo kuwa kaleba jawaabahooda idinka idiin daayo. tan kale sida ka muuqata musharaxiintu madaxda dawladda waxba uma hambeenin isla markaana uma baneenin fursad ama garoon iyaguna markooda ku ciyaaraan uguna soo jawaabaan qodobada shirka ka soo baxay sida dhankooda war looga helo. xaalkuna waa ninkii raran ku roogsadaa rabeeye nin la ruubruubshay xaad u reebtay. micnaha qofkii dambas kulul ku istaaga ayaa boodboodaya, qofkii isagoo dhan la dhex galshay dambas kulul ka warama muxuu sameynayaa? haddaba aan ka war dhowrno sida madaxda dawladdu ula ciyaaraan awoodda kale la ciyaaraysa ama ugu soo falceliso qodobada xujada ah ee ka soo baxay shirkii Hotel Jazeera. tala soo jeedin ugu dambeyn waxaan tala ahaan u soo jeedinayaa labada dhinacba in ciyaartu lagu dul ciyaarayo shacabka dushiisa aanay soo dhaafin wararka ku qoran warqadaha lagana fogaado wax kasta oo wax u dhibi kara xasiloonida iyo dawladnimada yarta ayaan maanta haysano oo aad ogtihiin meesha laga keenay waana in la muujiyaa xilkasnimo, dulqaad iyo tanaasul. sidoo kale waa in labada dhinacba ay joojiyaan kooxaha laga kala hadalsiinayo si loo kala muujiyo taageerada bulshada kuwaas oo aad moodo inay xaaladda uga sii darayaan. taa beddelkeedana waa in la helaa koox saddexaad oo ka madax bannaan hardanka isla markaana runta u kala sheegi kara labada dhinac ee ku loolamaya talada dalka. warbixinta waxaa qalinka u qaatay Cabduqaadir Dulyar waxaana wadajir u soo jeedinaya Luul Shahaad Cali Shaalu yaanigoo ah Maxamuud Sheekh Cumar Milaano. tan iyo kulan dambe Soomaaliyeed nabad.